cashirkeena mar kale maanta cashirkeena wuxuu ku saabsan yahay improve your vocabularies. Marka waa hagaaji ereyooyinka cusub aad ku hadashid. Vocabulary maxaa la dhahaa? Marka vocabulary maxaa la dhahaa? New words ereyooyinka kuwa cusub ayaa la dhahaa. Marka casharkan maanta wuxuu ku saabsan yahay inaan kordhino ereyooyinka cusub oo kusoo biiraya luqadda aan baranayno. marka luqad markaa baranayso waxaa wanaagsan in maalin kasta cashar hal erey cusub mise laba erey cusub aad kusoo kordhiso so that aad minaha markaa ku hadlayso luqadda aad u heshid option badan oo aad ku hadli kartid oo maxaa la jiray hal luqadda ay kugu fududaanayso qofka markuu barto luqadda meel kasta hadduu ka barto maxaa la jiray erey kasta hadduu ka barto more than 2 3 hal ama wax ka badan hataa ka taqaanid marka waa kuu fududaanaysa inaad ku hadasho luqadda. Marka wuxuu ku saabsan yahay casharkeeni marka inaan improve garee vocabulary marka vocabulary waxaa la erey cusub oo aad garanayno aad baranaysid. Marka improve waxaa waaye kobcinta ama kor u qaad. Marka maanta waxaan haysanaa 10 xaraf baan haysanaa insha Allah 10 xaraf ayaan dul maraynaa. Marka experience marka maxaa la experience wax qofka soo arkay markaad wax waxaad soo martay. For example experience waxaa isticmaali kartaa hadda kahor waxaad soo joogtay xaalad adag meel dagaal baad soo joogtay meel dagaal ka jiro dhib ama abaar oo nolol adag baad soo martay. Marka taas waxaa waaye experience kugu tahay waxaad soo aragtay ama qofku wuxuu soo bartay ha noqoto. Marka qofka wax hore noloshiisa soo maray oo markii dambe qofka uu ka sheekeynayo marka experience uu leeyahay marka qofka experience waa maxay experience khibrad baa la khibrad sophisticated maxaa loo isticmaalaa wax cusub erey modern cusub ayaa loo isticmaalaa erey cusub oo modern ayaa loo isticmaalaa ereyga marka modern shayga marka sophisticated marka dhahayd waxaa waaye waa shay la casriyeeyay waa casriyeen ereygan waa casriyeen loo isticmaalaa marka casri marka waxaad dhigi kartaa telefoonka ay haysto waa sophisticated marka leedahay waxaa ka wadaa waa telefoon casri ah. empty marka maxaa waaye empty waxaa waaye meel eber ah ama guri ha ahaado ama meel wax eber wax ku jiro waxaa loo isticmaalaa eber ereyga empty waaye. hardship nolol adag hardship marka waxaa waaye waa nolol adag qof nolol adag soo maray hardship waaye. leisure waxaa waaye qofka leisure waa horta waa raaxo leisure marka waxaa waaye qofka markuu fasax uu leeyahay oo iska dalxiis iska socdo marka uu iska leisure gareynaa ama waa iska socdo qofka iska socdo marka shaqo ku jirin fasax ama fasax holiday ama marka waa leisure loo isticmaalaa leisure qofka iska dabaal tagayo iska soo dabaalanayo ama meel kale aadayo iska waqtiga shaqadiisa ku jiro waqti shaqo aan ahayn qofka marka waqti fasax uu leeyahay wuxuu rabo sameyn kara marka waqtigaas maxaa la leisure. panic waxaa waaye cabsi waaye ama qofka inuu cabsi ama naxdin waxaa u taqaanid cabsi ama naxdin panic waa naxdin ama cabsi. tragedy maxaa waaye tragedy ayadana waxay la mid tahay panic uma la mid tahay tragedy laakiin waa tragedy marka waa masiibo wax meel markay adimana for example hadda markay dhacdo shil gaari ayaa dhacay dad badan ku dhintay that's tragedy. marka tragedy waa saas marka waxaa laga wadaa masiibo. unique marka waxaa waaye waxyaabaha kale ka duwan shay unique ah markaa dhacdo marka shaygan waxyaabaha dhan waxaad hore u arki jirtay wuu ka duwan yahay marka taas maxaa la unique
unique waa waxyaabihii hore aad taqaanay ka duwan yahay. marka sheyga markuu waxyaabihii hore aad u taqaanay ka duwan yahay waxaa waaye waa wax yar wax la dhahayo unique. Okay, number 9 grateful. marka grateful waxaa waaye loo isticmaalaa qofka marka u mahadcelin waayay u mahadcelin grateful. Number 10 open mind. marka waxaa qof maskax furan. marka ashirkan 10kaas xabo oo new words ayuu ka kooban yahay maanta ama vocabulary. marka insha Allah marka la qaadanayna marka improve your vocabulary. marka improve garee ama kor u qaad ereyooyinka cusub. marka ereyooyinka cusub kor u qaad ama kobci. marka 10 erey ayaan haysanaa. marka sidaan experience. number 1 experience wax khibrad aad u leedahay. experience waa khibrad. sophisticated wax mina sophisticated marka waxaa loo isticmaalaa wax cusub, shay cusub oo modern ah. sophisticated shay maxaa la dhihi jiray oo ah modern ama shay casri. sophisticated waa casri. empty marka waxaa waaye meel eber ah. shaygan eber mise empty waa empty marka waxaa waaye meel aan wax ku jirin. weel ha noqdo, guri wax kasta ha noqdo, meel aan wax ku jirin. hardship nolol adag. leisure waa xilliga raaxada. leisure ama holiday ama raaxada qofka xilligu shaqada ka maqan shaqadiisa ku jirin ayaa la leisure time, xilliga raaxada ama xilliga dalxiiska waa dhihi karta. panic marka waxaa waaye naxdin. waa naxdin. tragedy waxaa waaye masiibo. tragedy waa masiibo, meel masiibo ka dhacday. marka tragedy. unique number 8 unique waxaa wax waxyaabaha kala ka duwan. grateful marka grateful maxaa waaye mahadcelin. qof markaad mahadcelinaysid ama thank you adhaysid waxaa waaye waa grateful, waa u mahadcelinaysid wuxuu kuu qabtay ayaad minaha u ogtahay ma ilaawin. open mind waa qof maskax furan. cashirkan insha Allah intaan ayuu noo joogaa maanta. marka ereyooyinkan muhiim bay aada ugu yihiin ardayda. qof kasta waa inuu iska soo xafdiyo. waxaa rabaa inaad conversationadaada u isticmaashid maa inaad aragtida meesha ugu dhaqaaqdo. marka ereyooyinkan for example like sophisticated ama ereyooyinka dhan waxaa loo isticmaalaa meesha dhilayd modern hadda sophisticated aad dhihi kartaa. marka inaad u isticmaashin ayaa rabaa. marka taasna waxay kaa kordhinaysaa inaad luuqad si fiican u baratid ood ku raaxaysid. Assalaamu calaykum.